kulanti wanaagsan dadkana daawanayo mar kale iyo muuqaal kale oo aynu kaga hadlayno waxyaabaha muhiimka u ah horumarinta bulshada iyo waliba hay'adaha ama ururada ku guuleysta in qorshayaasha horumarineed ee adeegyada bulshada ay ka meel dhaliyaan. dalada ururada caalamiga ee Warmacad ayaa mar kale waxay xaqiijisay bishan in ay dadka ku dhaqan degmada Warshiiq ay mar kale rajadoodu ay helaan. daladaas waxay gacanta ku haysaa isbitaalka guud iyo iskuulka guud ee degmadaas Warshiiq. afar bil kadib waxaa si habsami leh u socda howlaha isbitaalka ee bixinta adeegyada caafimaadka iyo howlaha kale ee bixinta adeegyada waxbarashada ee degmadaas Warshiiq. dadka degmada degan ayaa waxay u riyaaqeen kormeerka iyo xaqiijinta qorshayaasha horumarineed oo ay Warmacad iminka ku howlan tahay. hadda isbuucidan waxaa isbedelay wax badan oo kusoo kordhay in iskuulka Warmacad ay waxaa bixisay dhiirigelin in macallimiinta ilaan nin baahan soo dheel ma kaliya ay dheel ma soo baday canjeerinta ilmaha siin waxa maqlaa mikrofoonka oo qeylina fiican isii horena u qaatay haddana u soo doontay oo daawooyinkooda u bagawo markii hore Muqdisho aan u doon jiray laakiin maanta aan u doonto degmada Warshiiq waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinaynaa Warmacad International dadkii isku xilqaamay in ay isbitaalkaani dhisaan ugu horeyntiiba isku xilqaamay in aqoontii iyo caafimaadkii labadaba ay kaalin ku yeeshaan. dhinacyada kala duwan ee Warshiiq mas'uuliyiinta golaha deegaanka iyo maamulka degmadana waxa ay soo dhaweeyeen dadaalada iminka lagu horumarinayo adeegyada bulshada ee degmadaasi oo ay ka tahay Warmacad iminka in ay ku howlan tahay in adeegyadaasi ay xaqiijiyaan. Titore Socolimo oo xubin firfircoon ka ah guddiga dalada Warmacad waxay hortagtay oo ay la hadashay dhiirigelin u sameysay ardayda dhigata iskuulka hoose dhexe sare ee degmada Warshiiq. ha iska baaqanin baaqashada ha ka naqato inaad gaabiso weligiin baaqashada iska ilaaliya haddaad jirantihiin oo jiro alla timaado gooni waa laakiin dheedheeliyaan looga maqnaanin iskoolka qaybka ardayda xataa anaga waxaan ku dadaalaynaa haddaan nahay Warmacad waxaan ku dadaalaynaa insha Allah biidhnilaahi tacaala in ijaaso laygu siiyo abaalmarin maqnaashan ardaygii maqnaadana inaan abaalmarin la siinin asaga waa zigzaagayba kii maalin walba yimaadana inaan abaalmarino aan isku daynaa. guud ahaan barnaamijkan gaarka ah waxaan ku eegi doonaa afar bil kadib markii Warmacad ay la wareegtay mas'uuliyadda iskuulka iyo isbitaalka degmada Warshiiq waxay iminka ka soconaya degmadaas Warshiiq. sidoo kale waxaa xusid mudan in qabsoomidda howlahaasi oo idil Warmacad ay qayb kala qaateen Kogar Foundation, Warmacad Sweden, jaaliyadaha Norway, Denmark, Jarmalka, Finland iyo South Africa. intaas oo idil oo iskaashatay ayaa waxay iminka u istaageen in bulshadoodu ay horumarin u sameeyaan. sagaal iyo tobankii February ee sanadkan 2020 guddi sare oo ay horkacayso Titore Socolimo Cabdullaahi Hilowle ayaa waxa ay gaareen degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. guddigaas ujeedkiisa waxa uu ahaa in ay iminka xaqiijiyaan sida ay u socdaan howlaha ka socda isbitaalka iyo iskuulka degmada Warshiiq oo ay gacanta ku hayso dalada ururada caalamiga ee Warmacad. guddiga ayaa markii hore waxa uu kormeeray iskuulka degmada waxa uu soo indhindheeyay qaabka ay u socdaan howlaha waxbarashada iskuulkaasi hoose dhexe sare ee degmada Warshiiq. kadib markii October sanadkii hore mas'uuliyadda iskuulkaasi ay si buuxda ula wareegeen dalada Warmacad isla markaana guddigu ay xaqiijiyeen qaabka iminka hore iskuulkaasi u socdaan shaqada macallimiinta tan maamulka iyo ardayda iminka waxbarashada ay helaan.
maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee degmada Warshiiq ayaa kormeerkaasi iskuulka kadib waxa uu warbixin la wadaagay warbaahinta iyo waliba mas'uuliyiinta guddiga Warmacad iyo maamulka degmada iyo waliba golaha deegaanka oo madashaasi ku sugnaa. Ustaadka ayaa soo bandhigay isbeddelka iskuulka ka jira tan iyo Warmacad markii mas'uuliyadda iskuulka ay la wareegeen. marka macalinka markuu dhiirigelin helo ayuu wuxuu helaa ayaa lala xisaabtami karaa. macallimiinta awal lama xisaabtami jirin, laakiin hadda isla xisaabtan fara badan ay imaanaya hadii meesha dhiirigelin soo gasho. waxaa kaloo nagu soo saaciday maadooyinka meeshii 5 maado ay maalintii ka bixi jirtay waxaan sameynay maado 6 ayaan ku darnay. maalintii 6 xisaab baxdo. mid kale 7 maado meeshii nooga ahaayeen waxaan 8 maado ayaan ka dhignay technology ayaan ku darnay. dugsiga dhexe technology-da caadiga qaato. meeshii dugsiga sare uu ka qaato computer-ka uu qaas u yahay isaga. waxaa kaloo noo imaatay markaas macalinka motivation ay meesha imaato macallimiintu waxay sameynayaan dabagal ayaa macallimiinta ku bilaabatay. macallimiintana waxay sii dabagalayaan ardayda. marka waxaas oo dhan waxaa noo soo saaciday ama nagu soo saaciday halaha taakuleenta yar ee aan ka helnay walaalaheena Warmacad iyo Baxnaano. marka waxaa kaloo nagu soo saaciday oo Baxnaano xaggeeda nooga imaaday dugsiga sare oo kale biochemistry macallin nagu maqnay. wuxuu nooga yimid dhanka Baxnaano biochemistry macallin waa noo keenay. marka waxyaabo intaas oo dhan marka waxay ka dambeeyeen intii la wareegay iskuulka la wareegtay Warmacad 22 October ilaa iyo hadda xilliga la taagay ay gacanta ku hayaan 22 October 2019 ay la wareegeen. marka ma sha Allah waxaan rajeynaynaa marka dhiirigelinta macallimiinta inay intaas iyo in ka badan aan ka helo walaalaheena. waana aad iyo aad ay u mahadsanyihiin. waana uga mahadcelinaynaa gacan qabadka ee aad naga soo gacan qabteen ama naga taakuleeyeen dhanka dhiirigelinta macallimiinta. intaasi kadib waxaa la soo aaday isbitaalka guud ee degmada Warshiiq. isbitaalkaasi oo howlaha caafimaadka si habsami leh uga socdaan. maamulka degmada Warshiiq oo horkacay gudoomiyaha degmadaasi Xasan Darafey iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka iyo guddiga Warmacad ayaa si wadajir u kormeeray qaybaha kala duwan ee isbitaalkaasi. waxay la hadleen dadka isbitaalka soo aaday maalintaas kormeerka uu socday ee halkaasi u soo doontay caafimaadka. waxaan sidoo kale ay soo indhindhayeen howlaha isbitaalkaasi, adeegyada weli uu u baahan yahay in lagu soo kordhiyo iyo weliba qaabka iminka dadka loogu adeegayo. agaasimaha isbitaalka Warshiiq Dr. Sakariya Xasan Meere ahna isuduwaha caafimaadka ee degmadaas Warshiiq ayaa kormeerkaasi kadib waxa uu nala wadaagay qaabka howlaha isbitaalka ay u socdaan. kadib waxaa u mahadcelinaynaa jaaliyadda ururada Warmacad iyo Toresa culumo oo maanta na soo booqatay maamada khayr Allah siiyo. guud ahaan soo indhaysay xaaladda isbitaalka iyo howlaha ka socdo. muddadii Warmacad dib u furtay kadib taasna waa ugu mahadcelinaa. waa wax loo baahan yahay mar walba in la kor joogteeyo shaqada meesha ay ka socoto. Warmacad saa ognahay isbitaalku waxay dib u furtay 26 bisha October 2019. kadib muddadaas isbitaalka howlo badan aan ka qabanay oo bulshada si lacag la'aan wax loogu siinayo, dadka wax loogu taraayo. ay ka mid yihiin 2 mar oo campaign caafimaad oo indhaha aan ka qabanay. mar aan ka qabanay indha fiiqid, marna aan ka qabanay waxay dhahayaan baaritaan xag indhaha ah. waxaa kaloo jaaliyadda intii dib ay u furtay isbitaalka laga hirgeliyay ceel aad soo arki doontaan oo isbitaalka gaar u ah oo biyo uu ka heli doono. guud ahaan isbitaalka inta aad joognay oo Warmacad dib u furtay kadib isbitaalku wuxuu bixiyaa adeeg joogto ah sida baaritaano, shaybaar lacag la'aan ah, daawo joogto oo lacag la'aan ah, waxyaalahaas oo dhan uu dhiibaa. guud ahaan isbitaalka marka jaaliyadda dib ay u furtay kadib waxaa lagu daaweeyay dad 1471 qofood ah oo 4 bilood isbitaalku uu furan yahay dib loo furay. dadkaas dhammaantood waxay ka yimideen dad tuulooyinka Warshiiq ku wareegsan oo 52 tuulo ah iyo dad safarley intaba isugu jiraan. inta waxaa marta baabuur joogto ilaa Hobyo ka timaado. dadkaas xataa haddii emergency case ay noqdaan isbitaalka waa lagula tacaalaa. marka jaaliyadda waa ugu mahadcelinaynaa shaqadaas ay qabtaan oo joogtada ah. waxaa kaloo dadka iyo u sheegaynaa in isbitaal joogto u shaqeeyo uu yahay, weliba ayadoo la wada ogyahay isbitaalka dhaqaatiirta iyo shaqaalaha joogo in si volunteer ula shaqeeyaan isbitaalka guud ahaantiisa.
maalin walba ay ka shaqeeyaan xataa emergency case haddii la arkaan laga shaqeeyo. intaasi kadib waxaa madasha ka hadashay Titore Socalima Cabdullaahi Hilowle oo ka tirsan guddiga sare ee Warmacad kormeerkaasina sameynaysay si uu ogaato holaha halkaa ka socda. Titore Socalima waxay ka sheekaysay waxay kala kulantay iskuulka markii ay tagtay iyo isbitaalka markii ay tagtay. waxaan halkaan maanta u imiday kormeer guud oo ku saabsan caafimaadka iyo waxbarashada ee degmada Warshiiq ee gobolka Shabeelle ee gobolka Hirshabeelle hoos yimaada. waxaan nahay urur la yiraahdo ururka Warmacad oo ah urur u dhaxeeyo Muqdisho Cadale iyo Muqdisho iyo Warshiiq u dhaxeeyo. intaas ay howlaheena mar walba shaqada aan u qabano dadka deegaanka. haddana waxaan bilownay arrin degdeg ah isbitaal aan ka dhisnay Warshiiq oo aan haddana ku jirno howlgalkiisii ilaa iyo ka bilaabato Oktoobar ilaa hadda aan howlgal fiican ka qabanay si dadka wax looga daaweeyo cudurrada ama ha noqoto umul ha noqoto ama caruur ha noqdeen sidaas ay u imaanayeen patient-ko dhan saas loo qaabilayay daawooyinka isdaba jooga loogu soo dirayay qadamaadka loo baahan yahay ama qorshaha xagga maaragtay dhaqaatiirta iyo gabadha umulisada iyo hawshooda dhanna waxaa damaanad qaaday Warmacad. daawadana waxaa damaanad qaaday Warmacad. dadkan waxay ku qaataan si free ay waxay ku qaataan daawadooda iyo baaristooda iyo soo dhaweyntoodaba aad iyo aad ayaan ugu faraxsan yihiin. saaka waa la kulmay waxaan wareystay maamooyin caruur yar haystay oo dhibanaa oo dhaheen annaga daawooyina ilmaha noola siiyay waana noo roonaadeen mar walbana saanaan u imaanaa saacad walba. waxbarashadii saaka waxaan la kulmay mudiirka maamulaha iskuulka Warshiiq Dr. Cabdullaahi ayaan la kulmay. Cabdullaahi Maxamuud xafiiskiisaan kula kulmay wuxuuna i siiyay warbixin buuxda oo ah in shaqada ayagana ay bilaabaan marka ay tahay subaxdii 2 saac ilaa iyo 6 saac iyo barna ay ku eg tahay lagana qaato 5 maado oo joogto ah iyo 2 maado oo ay tabarucaad uga heleen baxnaano. 5 maado kalena waxa waaye dhinaca Warmacad. marka waxa waaye dadaalka waxbarashada waxay maraysaa meesha ugu sareyso. ardaydii ayaan u galay dugsiyada dhexe sare hoose waan wada tagay. waa arday firfircoon oo u jajaban inay wax bartaan fahmadna leh. waxaana jecelahay galabta inaan la kulmo ama wax yar saacada ka dambe inaan la kulmo waalidiintii iskuulka si aan u wareysto inay ku qanacsan yihiin ilmahooda waxbarashadooda iyo inay ku qanacsaneen. ardaydiina waxaan isku ballan qaadnay inaynan maalin iskuulka ka baaqa doonin ee waxbarashadooda toos u wada doonaan ee macallinkooda iyo ayaga isla shaqay doonaan oo ay maaragtay sidaan maanta annaga uga soo baxnay waxbarashada oo maanta u hortaaganahay in ayagana berri mustaqbalka noqdaan. sidaas ayaan ku ballannay. waxaan leeyahay Warmacad waa dadaashay waxaan ku dadaalnay annaga isma faaninayna laakiin wax cad ayaa hortayna yaalo. isbitaalkeena waa ku guuleysanay waxbarashadeena waa ku guuleysanay horay ayaan u sii soconaynaa dadaalkeena hore ayaan u sii wadaynaa. tabarucaad kale haddaan helna xatee waa ka korkeenaynaa. waxaan jecelnahay waa inay dadkeena waxaan jecelnahay iyagana nala jeclaadaan waxaan necebnahay inay nala necbaadaan. waxaan leeyahay Warmacad way dadaashay waana guuleysatay guul iyo guul aan leeyahay. waxaan aad ugu mahad celinayaa gudoomiyaheena Maxamed Cabdi Alifley oo u beer adeegay dhexdana u xirtay in uu maaragtay kor u qaado deegaankiisa isagoo na hogaaminayo annaga guddigii ahna aan maanta nahay dadka la shaqeeyo oo maaragtay ku dayasho mudan ayaa nahay. gudoomiyaha degmada Warshiiq Xasan Xaaji Maxamed Darafey oo dhankiisa qayb ka ahaa kormeerka guddiga Warmacad ay sameynayeen isla markaana bogaadiyay qaabka howsha ay u wadaan iyo qorshayaashooda horumarineed ayaa waxa uu ka hadlay in iminka loo baahan yahay in jaaliyadda maamulka degmada iyo dadka degmadaba ay iskaashadaan isla markaana ay ka mara dhaliyaan hadba baahiyaha kale ee degmada ka jira. isbitaalka waayo ay muddo ayuu xirnay kadib waxaan furnay 22 November. howlo dardargelin caafimaad ah ayaa laga sameeyay intii hadda laga joogay dhowr bilood ah. maanta waxaan soo booqday waa kabtankii ugu horeeyay Soomaaliya
ahna deegaankan degnaa ka soo jeeday iyadoo uu ku horgalayso wixii karaankeeda ay ka tali karto waayo degmada Warshiiq ay ka taageeri karto waxbarashada iyo caafimaadka waxaan ugu mahadcelinaynaa booqashadii weyneed ee noogu timid Dooreeso Culumo iyo intii la socotay wafdigii balaarnay ee isla socdeen waxaan la wada soconaa xawaayo waayo isbitaalka fankiisa waqti xaadirkan iyo daawooyinkiisa fasilkiisa inay bixinayaan community Warmacad u dhawr istaageen baahida ka jirta degmadii iyadoo lahay fikirkii lagu dhisay waayo hospitaalkan degmada baahidii ka timid degmada waraayo community-ga degmada Warshiiq oo hay hospitaal la'aan ka jirta deegaanka baahiyay ka jawaabeen dhammaan jaaridaha ka soo jeedo Warshiiq iyo nawaaxigeeda iyadoo looga faa'iideystay maanta aan arkayno waayo bulshada ka faa'iideysanayso ama waxa waayo shacabweynaha kala yimid tuulooyinka ku hareeraysan degmada Warshiiq iyo degmooyinka la deriska ah ayuu waayo ka qaadanayaan daawooyinkii laga waayo howlmaameedkii gooniga ahay loogu sameynayo Allah subhanahu wa ta'ala ayaa maadaas iska leh waxaa jirta waayo baahi weyn oo loo qabo dhanka caafimaadka isbitaalku wuxuu u baahan yahay taageero weyn oo dhanka haday ahayd caafimaadka dhaqaatiir heerkooda kala duwan booliskooda kala duwan wuxuu u baahan yahay qalabkii guud ee hospitaal oo ku horgeli lahay wuxuu u baahan yahay gaadiidkii ambalaaska ahay oo tuulooyinka loogu soo qaaday dadka shacabka oo xaaladaha caafimaad la diriska ah waxaad ku howlgalnaa amba waayo ku adeegnaa waxa waayo shacabka iska xil saaraan iyo maamulka markii xaalad caafimaad dare ka dhacdo tuulooyinkiina u dirna waayo gaadiid noohooyin iyo wax la mid ah waa lagu soo daabulo waayo dadkii shacabka si loogu faa'iideeyo amba waayo loola tacaalo xaaladooda caafimaad si intii karaankeena wax ugu qaban karno wixii aan wax ka qaban karno wax ka qabana wixii aan wax ka qaban weynin kule waan gudbinaa oo isbitaalada Muqdisho mid kamid ah ku xirnaan ku gudbinaa qaar kamid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Warshiiq ka dhisan ayaa dhankooda waxay ka mahadceliyeen doorka iminka ay qaadanayso Warmacad oo ah mid muuqda isla markaana waxay soo dhaweeyeen in dadaaladaasi la sii kordhiyo dadkana iminka ay u riyaaqeen waxa socda isla markaana rajada dadka ay halkaas ka sii kororto ilaahay wuxuu yiri man yashkur Allah wa man yashkur an-nas qoftaan ku shukrin bini aadanka alla kuma shukriso waxaanu mahadcelinaynaa Warmacad mar hore iyo mar ay hadda iyo mar horeba iyo idana ma waxaan ka miirnayn nimanka la yiraahdo baxnaana gaar ahaan waxaan ugu mahadcelinaynaa Warshiiq say u garab taagan yihiin heer iyo habeen qaybta waxbarashada iyo caafimaadka labada meelba yani taariikhda xusu doonto kaalinta ay ka soo qaateen iyo mid hadda aan ka sugayno waxaan aad iyo aad leenahay guddiga sare oo Warmacad International Community walaasheen Culumo Cabdullaahi Hilowle hawsha oo soo idmateen waxaan qiraynaa anigoo golaha deegaanka ah inay qabatay si habsami u socod leh oo sharaf leh ay ku qabatay ay saxamar ka naqan allama fashahid ilo marqaati ka noqo idinkan marqaati ka ahaada waqti kula ku jira waqti aan seegna marabno golaha deegaankana marqaati ka yimaad taagan iyagana iyo community dhalinyarada oo mataqaana Warshiiq ugu firfircooneed sida Anas iyo Umar Sheekh iyo ragga ma hortana ka muuqdo waxaan leenahay marka inaan waxaan dareemaynaa maanta inuu isbedel cad oo la muuqdo la taaban karo inuu skiilkan uu sameeyay muddada kooban gacanta lagu qabtay oo macallimiinta wax laga bedelay waxaana arki doontiin masjidka idin keento walaasheen Culumo Cabdullaahi Hilowle ayaa idin sheegi doonto waxaan leenahay inaad dadaalkiina si ma laabtaan annagana waxaan ka gol ahaan iyo ka deegaan ahaan ka nabadoon ka waalidiin ahaan annagana aan ardayna soo dirno macallimiintana ay ku dadaasho maamulaha uu ku dadaalo gacmaha aan isqabsano maanta insha Allah waxaan rajaynaynaa new Warshiiq waa meel diineed waa meel taariikhi leh waa meel yani sharaf badan dadkeera inkoo dhan kastaba ka dhisan ayaan rajaynaynaa inay mustaqbalka soo socdo inay ka qayb qaadan doonaan haddaad waxay tiri walaashay Culumo waxay tiri xilligeyn aniga aan soo marnay aabayaashiina ma helnay tiri miisaskan iyo guriga waa runteer geelka hadda joogo wuxuu haystaa teknolojiyada daraad mid ka sii casrisan marka inay ka faa'iideystaan ardayda
waalidiintana waxaan ka codsanaynaa cod dheer iyo hal gaaban inay ardayda ay ku mashquulin mataqaana waxyaabaha xabka soo bixino shaqada yararka gaagaabka guryaha gabdhaha looga diro especially gabdhaha inay soo fasaxaan ka codsanaynaa bisadkaasna inay gaarsiin doontiin rajayna waalidiintii macallimiintana waana maqlayn waxaan ka rajaynaynaa inay dadaalka iyo ay bixinayaan inay mataqaana arday macallin wuxuu jecel yahay ardaygaagii oo wax bartay oo ognahay anaga marka inay arday fiican soo saari doonaan golaha deegaankana waxaan ka codsanaynaa ayaga oon aniga ka mid ahay inay geed gaab iyo geed dheer ay u koraan say warshiiq mataqaana new warshiiq ay u noqon lahayd aada farxad maanta waxaa noo ah inaan soo booqanay iskuulkii annagoo golihii deegaanka isugu jirno dadkii ka soo jeeday degmada iyo deegaanka waxaan u mahad celinaynaa warmacad international sidii xilkasnimada ay isugu howshay in ay wax u qabato deegaanka ayadoo markaasi garab kaashanaysa dhalinyaro firfircoon mustaqbal fog leh rabo deegaankooda inay horumariyaan ku fikiraya inay la jaan qaadaan wadamada Yurub marka aad aan soo dhaweynaynaa Baxnaana iyo Warmacad waxa ay qabteen taariikh lama iloobaan ay noqon doontaa kulli adduun iyo aakhira insha Allah way ku liibaani doonaan marka waxay heleen dhiirigelin macallimiintii ma aha degmada Warshiiq oo kaliya waxay heleen deegaanada dhan ilaa tuulooyinka ayay gacantooda gaartaa marka insha Allah hadii Ilaahay yira tijaabay ahayd wixii hadda ka horeeyay laakiin insha Allah hadda markay dhiirigelintaan helaan waxay sameyn doonaan in dadka qurba jooga ah ay u maqan waxa ay arkayaan in deegaanka ay ku soo biiriyaan hadii Ilaahay yira haday deegaan ahayd hadii muxuu ahay waxbarashada ilaa heer jaamacadeed aan rajaynayna insha Allah taala waxaan maanta aan joognaa oo aan marqaati ka nahay hadaan nahay golaha deegaanka degmada oo iskugu jiro aqoon-yahano iskugu jiro dhaqaatiir iskugu jiro waxgarad in aan marqaati ku noqono isbedelka muuqda ee muddada ah ay ka jira iskuulka dugsiga hoose dhexe ee sare ee Warshiiq waxa sharaf noo ah in aan maanta la joogno gabadhii ugu horeysay ee qaadatay darajada kabtanimo in la kaxeeyo markab Soomaalidu qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadiisa waxa jiray man la yashkuru naasa la yashkuru Allah qofka aan u mahad celin qofka bili aadanka Ilaahay u mahad celin waxaan rabnaa marka hore khibradaas iyo aragnimadaas iyo aqoontaas ay leedahay ay kula soo noqotay deegaanka ay garatay ayadoo gabar ay ka soo safartay wadamo dibadda ah timid inaan marka hore urta u mahad celin oo Torres waa mahadsan tahay sidoo kale waxaan dhiirigelinaynaa marka hadii waxa jirta xigmad dhahaysa qof walba adigoonan qoran askari adigoonan qoran sidan qof walba oo ciidan baad qaranka ka ogow iyo mahmaah dhahaysa dal walba waxa dhisa dadkiisa hadii aan u kacno marka qof walba leh xifrad qof walba leh xoog qof walba leh aqoon qof walba hanti haysto hadii aan isku darsano oo aan macnaha waxaan sameeyno gacmo wada jiray wax ku gooyaanay aan beeca ku galno inaan dalka hormarino Ilaahay subhanahu wa ta'ala nuguushaas wada haleeshiina waxaan ku dardaarmaa marka aan leeyahay inta naga maqan waan ognahay waqtiga u saamixi waayay xumaan kuma maqna laakiin inaan ka dhiirigelino meeshan dhaano waxa loo kacay deegaankiini dadkiini dada dhibaataysan waa dareemi kartiin wali xataa dadka qurbaha nooga maqan ee arkay wadamada dhisan ee hormaray waa ogahay qalbigooda waxba ku jiro waxba ka guuxaya wanaag laakiin soo ma gaaraan in ay nagu taakulayaan marka inay nagu taakulayaan dhiirigelintooda iyo wixii ay heli karaan hel iyo ho si ubaxaan iftiimaayo oo nasiibka u helay ayagoo deegaankooda joogan inay uniform helaan inay manahijti iyo buwaagti dawladda Soomaaliya ay bixinaysay ee xaq uga lahaayeen inay helaan oo loo soo diyaariyo macallimiinta loo soo diro marka macallimiintaas waxay noqonaysaa energy-gooda wuxuu noqonaa in la garab istaago oo la yiraahdo waad mahadsan tahay waan ognaa gurigiisa ka yimid safar uu soo galay laga yaabo inuu heli karo shaqooyin ka dhow halka meesha uu ka shaqeeyo laakiin waxa uu doortay waxay tahay inuu dalkiisa hormariyo marka qof walba waxaan ka rajaynaynaa insha Allah taala ugu mahad celinaa intii gacan ka geysatay marka ugu horeyso inta kale waxaan ka rajaynaynaa inay nagu soo biiraan degmada loo istaago sidaan ognaa degmada waxa ka dhisan council ama waxa ka dhisan golo deegaan oo ay bulshadu soo dooratay raali ka tahay marka golaha deegaanka marka wax ma qaban karaan hadii bulshada inteeda kale aysan dhinac istaagin Torresada waa mahadsan tahay wakiilka ka ururka Warmacad haddaba howsha horumarneed oo ay Warmacad ka hayaan degmada Warshiiq si loo ogaado waxa meesha ka socda waxa qiraya oo xaqiijinaya dadka ku dhaqan degmadaas Warshiiq waalidiinta carruurtooda ay dhigtaan iskuulka degmada
Warshiiq iyo waliba hooyooyinka iyo caruurta caafimaadka ka helaya isbitaalka guud ee degmada Warshiiq ayaa waxay xaqiijiyeen in iminka waa cusub oo u bariyay isla markaana rajadaasi soo ifbaxday ay ka heleen dhanka iyo dalada Warmacad. waxaa ka mid ahay waalidiinta iskuulka horta ma hadda waxaa iskale Allah wax badan waa u soo sabarnay iskuulka asoo waxba dhaqaale ay qaadeen macallimiinta maadaama ay yihiin macallimiin deegaanka ay gacanta ka qabteen iskuulaadkeeda wax badan mushaaraad la bixiyeen casharaad waa loo dhigay iskuulka ciyaalka hadda isbuucidan waxaa isbedelay wax badan ku soo kordhay in iskuulka Warmacad ay waxaa bixisay dhiirigelin inay macallimiinta ileen nin baahan soo dheelma kaliya ay dheelma soo badan canjeerinta ilmahaas in waxa maqlaa mikrofoonka qeylinaay marka wax badan iska bedelay alxamdulillah marka ma hadda waxa iskale Allah iyo dadkii dalkooda iyo dadkooda u istaagay ee dhaheen aan hormarino marka marmuucad aad ugu mahadinaynaa aad ugu mahadcelinaynaa waxa waaye dadkooda qoftii wax u qabatay dadaal dheeraad ay sameysay dadkeediina wax u qabatay soo marka wax badan iska bedelay macallimiinta wax farayfada galabtii way dhigaan subaxdiina waxay dhigaan ciyaalka inay min subax sameecada looga sii daaro casharadooda si ay iyo u soo rooraan iskuulka marka wax badan iska bedelay waxaan leeyahay Warmacad ay wanaajihay adaa lagu wakiishay marka idaa wakiil ah wanaajis hawada dadaalka aad u sii dheerayso waxa ay qabato waxa waaye wax ku dayasho mudan intii hurdaysan ha ka kacdaan leh oo dalka u dhalatay ee gacmaha isku qabsadaan nin walba wadankiisa inuu hormariyo diyaar u yahay haddii dadkaaga wax ku qaban dadka hore oo ku yimaado wax ku qabanayo ma filanaysa waa joogay dugsigan hadii la furay waqtiga la furay ilaa hadda waa dhex joogay marna kama bixin marka alxamdulillah wax badan buu soo maray dugsigan hadii Baxnaano iyo Warmacad haday la wareegeen waxaan dareenay hadadiinaan dareenay ama macallimiinta ha ahaato ama ardada ha ahaato marka alxamdulillah ilaa mahadle Warmacad iyo Baxnaanaba waxaan u rajeeyaynaa qeyr wax badan ay soo kordhiyeen macallinka wax baraya hadduu asan tansiiraad haysan lama xisaabtami karo marka waa la xisaabtami karaa hadda anaga shaqadaynu waxay tahay macallimiinta iyo ardada inaan ku dhex jirno dadka waalidiinka guryaha ugu tagna dhahna ardada dugsiga hala keeno intaas oo dugsiga furnasaas aan ugu dhex jirnay haddana wala wadnaa marka nimankan Warmacad iyo Baxnaano waxaan u rajeeyaynaa qeyr dadka hore wax qabteen waxa la yiri gacanta gobeer soo doonina uma galadin dadka hore deegaankooda dalka hore wax u qabteen waa ku mahadsan yihiin ma hadda koobad ilaah baa iska limid lamaana ay kaale inuu daawooyin fiican isii horena u qaatay haddana u soo doontay oo daawooyinkooda u bagawo markii hore Muqdisho aan u doon jiray laakiin maanta aan u doonta degmadeeda Warshiiq ma sha Allah maxaa keenay inay ku soo doonto daawada marka maxaa keenay daawada xanuunka laakiin markii hore daawada waa xaqay jirtay Soomaaliya Muqdisho hadda maxaa ku fududeeyay dhawaanta ee noo soo dadaalka wax walba lagu dadaalo horumar ay gaarto dhalinyarada iyo dadka shacabkeena horumar la gaarsiiyo haddii aan nahay jaaliyada ama guddiga deegaanka degmada Warshiiq haddii aan nahay deegaanka degmada Warshiiq ugu horeyn Allah u mahadcelinaynaa marka labaad waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinaynaa Warmacad International dadkii isku xilqaamay in ay isbitaalkaani dhisaan ugu horeyntiiba isku xilqaamay in aqoontii iyo caafimaadkii labadaba ay kaalin ku yeeshaan Warmacad waxaan leeyahay ilaahi khayr ha idin siiyo jazaakallahu khayr walaalaha muxsiniinta ah oo Warmacad oo Yurub ku nool iyo South Africa ku nool oo ku dhiiraday in wixii quutulyoonkoodii ayaga ay shaqaysteen in ay walaalahood ku caawinaan waa ugu mahadcelinaynaa khayr Allah idinku bedelo jazaakallahu khayr aan dhahaynaa dadkii soo ololeeyay oo ugu horeeyay gudoomiye Maxamed Cabdi Alifley iyo gudoomiye ku-xigeenada maamulka oo dhammaan intii Warmacadba ku abtirsata waxaan leeyahay jazaakallahu khayr ilaahay ha idinka abaal mariyo alxamdulillah Warmacad saan u helnabo caafimaad fiican oo buuxaan helnay ilmaha markay naga xanuunsadaan waa la soo cararnaa waa keenaa gaari hadduu noo joogo hadduu gaari joogo waa keensanaa aad iyo aad u mahadsantihiin maasha Allah habeen iyo maalin maasha Allah doctorka oo gacan uu nasiiyay oo nasiiyay daawo nasiiyay oo igu caafimaad alxamdulillah maanta hadana soo laabanaa daawo kale noola qoray marka hadda ka damban isbitaalkiina saas la hawshiisa idinku soconaysaa insha Allah baahan yahay inaan saan oo kale carruurta u keensatiin
feebar hadduu ku dhacay guriga hala jooginina isbitaalka ula soo carara saa u ogaatiin waxa insha Allah waa tahay daawadayaal gudaha barnaamijkii gaarka ahaa aynu ku eegeynay adeegyada horumarinta iyo weliba ururada qaybta ka qaata adeegyadaasi oo ay haddaba ugu horeeyaan oo aan barnaamijkaana kaga hadalnay dalladda warmacad xoolaha ay ka fulinayaan degmada warshiiq intaan kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena waxaana xusid mudan in ururkaasi dalladda caalamiga ee warmacad ay kala shaqeeyaan amaba ay ku midaysan yihiinba Kogar Foundation, warmacad Sweden, jaaliyadda Norway, Denmark, Jarmalka, Finland iyo South Africa. Intaasi oo idil oo iskaashaday ay waxa iminka sameynayaan in wax muuqda ay ka qabtaan degmooyinka Warshiiq, Cadale iyo Muqdisho. Dadka ka soo jeeda deegaanadaasi ay ku midaysan yihiin dalladaasi warmacad. Gudaha barnaamijkii waanaginta tan iyo kulan dambe nabadgelyo.